markabkii Titanic oo sidoo kale loo yaqaan RMS Titanic wuxuu ahaa markabkii ugu weynaa ee badda oo wakhtigiisii la sameeyey, wuxuuna ka mid yahay dhacdooyinka ugu xanuunka badan ee taariikhda badaha. Markabka wuxuu ku safray safarkiisii ugu horreeyey oo kaga yimid Southampton, England kuna socday New York City, Maraykanka, bishii Abriil 1912. Hase yeeshee, markabka wuxuu ku burburay badda Atlantiga waqooyi kadib markii uu ku dhacay baraf weyn. Qisadan waxay ka tarjumaysaa geesinimada, qalbi jabka, iyo waayida nolosha dad badan. Titanic wuxuu ahaa markab aad u weyn oo loo dhisay in uu noqdo mid raaxo leh oo aad u ammaan badan. Waxaa laga dhisay magaalada Belfast, Northern Ireland, shirkadda White Star Line, waxaana la qaaday safarkiisii ugu horreeyey 10kii Abriil 1912. Titanic wuxuu ka baxay Southampton, wuxuuna soo maray Cherbourg, France iyo Queenstown, Ireland, halkaas oo rakaab dheeri ah laga soo qaaday. Markabka waxaa saarnaa ku dhowaad 2,224 qof, oo ay ku jiraan rakaab iyo shaqaale. Titanic wuxuu caan ku ahaa raaxadiisa iyo tiknoolajiyada casriga ah. Waxaa ku rakibnaa qolal raaxo leh, maqaayado heer sare ah, goobaha jimicsiga, iyo xitaa barkadda dabaasha. Markabka waxaa sidoo kale lagu faanayay inuu yahay mid aad u ammaan badan oo aan macquul ahayn inuu quuso sababtoo ah qaabka casriga ah ee naqshadayntiisa. Hase yeeshee, raaxadaas iyo kalsoonidaas waxay noqdeen kuwa aan waxba tari karin markii ay musiibada dhacday. Habeenkii 14kii Abriil 1912, Titanic wuxuu sii maray badda Atlantiga waqooyi. Inkastoo digniino badan laga helay barafka badda, markabka ayaa sii waday socdaalkiisa xawaaraha sare. Qiyaastii 11:40 habeenimo, Titanic wuxuu ku dhacay baraf weyn oo sababay inuu dilaaco qaybta hoose ee markabka. Wax yar kadib waxaa caddaatay in markabka uu quusi doono. Titanic wuxuu bilaabay inuu si tartiib ah u quuso, waxaana bilaabmay in rakaabka iyo shaqaalaha la daadgureeyo. Waxaa jiray doonno badbaado oo ku filnaan waayey dhammaan dadka saaran markabka, taas oo sababtay in dad badan ay waayaan fursad ay ku badbaadaan. Waxaa jiray dumar iyo carruur loo dhiibay doonyaha badbaadada marka hore, iyadoo rag badan oo saarnaa markabka ay ku waayeen noloshooda. Doonida badbaadada ee ugu horreysay waxay ka baxday markabka qiyaastii 12:20 habeenimo, waxaana raacay rakaab iyo shaqaale yar. Titanic wuxuu si buuxda u quusay 2:20 habeenimo 15kii Abriil 1912, wax yar kadib markii uu ku dhacay barafka. Waxaa ku dhintay in ka badan 1,500 qof, taas oo ka dhigtay mid ka mid ah musiibooyinka badda ee ugu weyn taariikhda. Doonida Carpathia ayaa timid goobta shilka saacado kadib waxayna badbaadisay dadkii faro ku tiriska ahaa ee ku jiray doonyaha badbaadada. Kadib dhacdada Titanic, waxaa la sameeyey baaritaan ballaaran oo lagu ogaanayo sababaha keenay musiibada iyo sidii looga hortagi lahaa dhacdooyinka noocan oo kale ah mustaqbalka. Baaritaanka wuxuu muujiyey in dhibaatooyinka badbaadada iyo digniinta aan la qaadan ay door weyn ka ciyaareen musiibada. Waxaa la soo saaray talooyin iyo isbeddelo badan oo lagu horumarinayo amniga maraakiibta, waxaana la sameeyey heerar cusub oo loogu talagalay maraakiibta badaha, kuwaas oo ay ka mid yihiin in maraakiibta lagu qalabeeyo doonyo badbaado oo ku filan dhammaan rakaabka iyo shaqaalaha, in la kordhiyo tababarka badbaadada ee shaqaalaha markabka, in la sameeyo digniin iyo xiriir wanaagsan oo ku saabsan barafka iyo xaaladaha badda. Qisada Titanic waxay leedahay saameyn weyn oo dhaqameed, iyadoo laga sameeyey buugaag, filimaan, iyo riwaayado badan oo ka sheekaynaya dhacdadan. Filimka caanka ah ee Titanic oo uu jilayay Leonardo DiCaprio iyo Kate Winslet ayaa noqday mid ka mid ah filimaanta ugu guulaha badan taariikhda, wuxuuna soo jiitay malaayiin daawadayaal ah oo ku saabsan qisadan taariikhiga ah. Titanic waxay weligeed ku sii jiri doontaa xusuusta dadka iyadoo astaan u ah geesinimada, qalbi jabinta, iyo waayida nolosha dadka badan. Goobta uu ku quusay ayaa noqotay meel xusuus leh oo ay booqdaan cilmi-baarayaal iyo dalxiisayaal badan oo doonaya inay arkaan burburka markabka. Titanic waxay astaan u tahay muhiimadda badbaadada badda iyo in la fahmo khatarta iyo muhiimadda digniinta iyo diyaargarowga. Markii ay dhacday musiibada Titanic, waxaa la sameeyey barnaamijyo xusuus ah iyo munaasabadaha xusuusta ee loo qabtay dadka ku dhintay.
xusuusayaasha waxaa ka mid ah taalooyin, xaflado, iyo barnaamijyo lagu xasuusto dadkaas. Taalada Titanic Memorial oo ku taal Washington, iyo xaflado sanadle ah oo lagu qabto meelo kala duwan oo caalamka ah ayaa ka mid ah barnaamijyada lagu xuso dadkaas. Burburka Titanic waxaa la helay sanadkii 1985 kadib daraasad dheer iyo baaritaanno badan oo lagu sameeyey badda Atlantiga. Helitaanka burburka markabka waxay ahayd tallaabo weyn oo taariikhi ah, taas oo keentay in la helo xog badan oo ku saabsan sababaha musiibada iyo xaaladaha markabka xilligaas. Baaritaanada burburka ayaa sidoo kale keenay in la sameeyo barnaamijyo iyo carwooyin lagu soo bandhigayo alaabta laga soo saaray burburka, taas oo si weyn u xiiso gelisay dadka. Musiibada Titanic waxay horseeday in la sameeyo barnaamijyo badan oo cilmi baaris iyo waxbarasho oo lagu baranayo taariikhda iyo muhiimadda amniga badaha. Jaamacado iyo hay'ado badan ayaa sameeyey barnaamijyo gaar ah oo lagu barto dhacdadan iyo casharada laga bartay. Barnaamijyadan ayaa ka caawiya ardayda iyo cilmi-baarayaasha inay fahmaan sababaha musiibada iyo muhiimadda ay leedahay ilaalinta amniga badaha. Musiibada Titanic waxay keentay in la sameeyo isbeddelo sharci iyo habab cusub oo lagu xoojiyo amniga badaha. Xeerarka cusub ee la soo saaray waxaa ka mid ah in dhammaan maraakiibta badaha ay ku qalabaysan yihiin doonyo badbaado oo ku filan dhammaan rakaabka iyo shaqaalaha, in la kordhiyo tababarka shaqaalaha badbaadada ee maraakiibta, in la sameeyo digniin iyo xiriir wanaagsan oo ku saabsan barafka iyo xaaladaha khatarta ah ee badda, in la helo qalab casri ah oo lagu ogaanayo barafka iyo khataraha kale ee badda. Musiibada Titanic waxay saameyn weyn ku yeelatay qoysaska iyo bulshada inteeda kale. Qoysaska dadka ku dhintay waxay la kulmeen murugo iyo xanuun aan la soo koobi karin. Dadka badbaaday waxay noqdeen kuwo caan ah oo soo bandhigay sheekooyinkoodii murugada lahaa. Bulshada inteeda kale waxay ka baratay dhacdadan muhiimadda ay leedahay badbaadada iyo ilaalinta nolosha dadka. Cilmi-baarayaasha iyo taariikhyahanada waxay sii wadaan baaritaanka iyo daraasadda ku saabsan musiibada Titanic. Baaritaanadan ayaa si joogto ah u helaya xog cusub iyo faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sababaha musiibada iyo xaaladaha markabka xilligaas. Cilmi-baarayaasha waxay sidoo kale sii wadaan inay helaan alaabo iyo xog laga soo saaro burburka markabka, taas oo ka caawinaysa inay fahmaan dhacdada si wanaagsan. Xusuusta Titanic waxay weligeed ku sii jiri doontaa taariikhda iyadoo astaan u ah geesinimada, qalbi jebinta, iyo waayida nolosha dadka badan. Barnaamijyo iyo munaasabado xusuus ah ayaa si joogto ah loo qaban doonaa si loo xuso dadkaas iyo dhacdadan taariikhiga ah. Xusuusyaashan waxay ka caawinayaan bulshada inay fahmaan muhiimadda amniga iyo ilaalinta nolosha dadka. Qisada Titanic waa qiso murugo leh oo ka turjumaysa awoodda aadanaha ee la dagaalanka musiibada iyo sida qalad yar uu u keeni karo burbur weyn. Waa qiso ku saabsan geesinimada dadka iyo muhiimadda ay leedahay in laga barto qaladaadka si looga hortago musiibooyin mustaqbalka. Titanic waxay weligeed ku sii jiri doontaa taariikhda iyadoo tusaale fiican u ah muhiimadda badbaadada iyo qalbi jebinta dadka safraya badda. Titanic waxay astaan u tahay awoodda iyo xanuunka aadanaha iyo sida xusuusta dhacdooyinka noocan oo kale ah ay u horseedi karaan isbeddelo wanaagsan oo lagu horumarinayo amniga iyo badbaadada dadka ku safra badda. Marka aan xusno Titanic, waxaan xusnaa geesinimada dadka, casharada laga bartay, iyo muhiimadda ay leedahay in aan si wadajir ah uga shaqayno sidii aan u badbaadin lahayn nolosha dadka mustaqbalka. Qisada Titanic waxay ina xusuusinaysaa muhiimadda ay leedahay ilaalinta amniga iyo in aan fahanno khataraha iyo caqabadaha badda. Waa qiso ku saabsan geesinimada, qalbi jebinta, iyo waayida nolosha dadka badan, taas oo weligeed ku sii jiri doonta xusuusta dadka. Marka aan xusno Titanic, waxaan xusnaa taariikhda, casharada laga bartay, iyo rajada aan u qabno in aan ka hortagno musiibooyinka mustaqbalka.